maanta ay taariikhdu tahay 10kii bisha 7 2020 waxaan qodinaa waxa weeye xambihii weynaa ee degmada Doolow oo isugu nimid mas'uuliyiin heer gobol ah, heer degmo, heer deegaan, xildhibaano, dimishinkii dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Gado gaar ahaan deegaanka la yiraahdo Daawo. waxaan rabnaa in aan warbixin yar hawlo aan qabanaynay waayadii ugu dambeysay aan ka sheegno meeshaan oo ahayd labadii bishii 6aad inaan kormeer ama socdaal ku tagnay deegaan la yiraahdo Bohol Garas ee dhaca waqooyi gobolka Gado ama webiga weyn ee Juba dhinaca waqooyi ka xiga. deegaankaas oo wax dawladda aysan tagin 30 sano ee ugu dambeysay. safarka asaga ah waxaa hogaaminaya barasaabka gobolka Gado, taliyaha xasilinta, taliyaha qaybta booliska iyo mas'uuliyiin badan ee kala duwan. anigana aan ku wehelinahay safarka asaga ah. meeshii marka aan tagnay waxaa ka jiray baahiyo aad u ballaaran ee baahiyaha asaasiga ah sida biyo la'aan, waxbarasho la'aan, caafimaad la'aan iyo wax kastay u baahan tahay bulshada. waxaan rabnaa marka in aan baaq halkan uga jeedino bulshada ama dadka ka soo jeedo gobolka Gado gaar ahaan Bohol Garas iyo nawaaxigeeda in arrinta aan ku aragnay ama waxyaabihii aan ku aragnay meeshaas ay dhagahooda si fiican ugu furaan, indhahana ay furaan, maankooda iyo maskaxdoodana ay siiyaan warbixinta aan halkan ka jeedinayno. arrinta ayadaana hadda waxaa inoo sii faahfaahin doono nalana jooga mas'uuliyiinta kala duwan ee heer gobol. ilaahay baa mahadsan. waxaa maanta degmada Doolow Soomaaliya ka qabsoomay shir muhiim ah oo uu soo qaban qaabiyey maamulka degmada Doolow Soomaaliya oo ugu horeeyo gudoomiyaha Cabdi Faarax Mire. shirkaas oo daaranaa in laga hadlo baahiyaha ka jiro deegaanka Bohol Garas. waxaa shirkaas ka soo qayb galay hay'adaha UN-ta iyo kuwa kale caalamiga ah oo gudoomiyaha ku casuumay si ay u dhageystaan baahiyo ka jira deegaanka Bohol Garas oo uu soo jeediyey maamulka gobolka iyo maamulka degmada Doolow Soomaaliya si wada jir ah. waxaa ka soo qayb galay kulankaas maanta hay'adaha UN-ta oo ay ka mid tahay hay'adda WFP, hay'adaha caalamiga ah sida hay'adda World Vision, DRC, DDG oo iswato iyo NCA iyo hay'adda IOM. dhammaan hay'adahaas waxay kala hadleen barasaabka gobolka Gado, gudoomiyaha degmada Doolow, gudoomiyaha deegaanka Bohol Garas iyo mas'uuliyiinta kale ee shirkaas ka soo qayb galay baahiyaha ka jira deegaankaas oo ay ugu horeyso biyo la'aan baahsan oo deegaankaas ka jirto iyo baahiyaha asaasiga sida waxbarashada, cunno la'aan iyo arrimaha kale ee bini'aadamka u tagaya dhammaantood. waxaana kulankaas ka soo baxay is-afgarad. hay'adahana waxay garwaaqsadeen in ay arrimahaas jiraan, walow ay jiraan waxyaabo yaryar oo halkaas ay ka wadaan, haddana waxay ka codsadeen gobolka in la soo qoro baahiyaha asaga ah si ay ula wadaagaan madaxdooda sarsare, jawaabna looga bixiyo. arrinkaasna way aqbaleen maamulka gobolka iyo maamulka degmada Doolow oo arrinkaas soo jeedintiisa lahaa.
waxaan rajaynaynaa insha Allah in hay'adaha ay ka soo jawaabi doonaan. dib halkaani waxaan ku kulannay hay'adaha ka howlgala gobolka Gada. waxaan aad ugu wada hadalnay baahiyada ka jira ee gobolka Gada sida ay ugu howlgalaan. waxaan aad ugu mahadcelinay boqolkiiba boqol inay hay'adaha si buuxda wax u qabteen, waxqabadkoodana uu yahay si saa'id ah. haddaysan ayaga joogina maxaan ku rahdaa dhibaato badan uu gobolka la kulmi lahaa. haddana waxaan ka codsanay dhammaan degmooyinka gobolka Gada baahiyada dhabta ah oo ka jira inay si buuxda ugu howlgalaan, gaar ahaan meel safar aan ku tagnay ayaan dhaweyd oo la yidhaahdo Bohol Garas. runtii waxaan barinay ilaa 5 casho. waxaa ka jirtay baahi aad u bilaaran oo ugu daran tahay biyaha. runtii foostada biyaha waxaa la gadaa $5. waxaana taala booyad la soo kireeyay oo balaxa laga soo kireeyay taala halkii foostana waxaa la gadaa $5. runtii meeshaas oon waxaa ka jira aad iyo aad u bilaaran baahiya aad iyo aad u bilaaran ayaa ka jira. webigan wuxuu jiraa 18 kilomitir. haddaan indhayni waxaan istusnay in baahidaas hay'adaha ka howlgala gobolka Gada aan u gudbino. markaan u gudbinana inay wax ka qaban doonaan waa filaynaa. markaan aad u wada hadalno oo isu sheegnay waxay noo sheegeen in baahidaas anaga qoraal nagala raba inaan qorno. hay'adahan aan sidaan ugu codsanay insha Allah waxaan ku rahdaa ay wax ugu qaban doonaan. anagana dhankanaga waxayna saareen inaan wax ku darna. sababtoo qofka markuu wax qabsadaa wax loogu dari karaa inaan anaga bilowno ayagana ay wixii ka qaban karaan ka qabtaan. codsigaas way naga aqbaleen hay'adihii. insha Allah taala waxaan leenahay marka deegaanka dad baa ku nool oo degan. ayaanta aniga aan joogo dad badan oo jaaliyada jiro oo reer Bohol Garas ah iyo reer Qoonay ah oo fara badan iyo maxaan ku raadiida anaa dadkii deegaanka adiga Bohol Garas ka hoos imaado dhan jaaliyada dadkii jiray way kala hadleen. deegaankan uu sheegay inay baahi bilaaran ka jirta. dadka asaga ahaa runtii aad bay ugu faraxsanayeen inaan meesha tagna. nolosha dadka aad bay u jeclaayeen. waxayna noo sheegeen garoon aan ka asaasi rabnay meesha inay qaybo ka dhisi doonaan oo inta badan ayaga ay dhisi doonaan. waxaan rabnaa dadka asaga ahaa maadaama annagana la soo saaray qayb ka mid ah inaan bixinna oon bilowna annaga aan dhulkii bilowna. waxaan filayaa 18 kilomitir meel u jirta ayaa laga jiidi doonaa biyaha tegi doona Bohol Garas. qayb ka mid annaga gobolka qaadan haddii Ilaahay raali ka noqdo inaan bixinno ama degmooyinkanaga dhammaan aan isu imaana ama jaalidaha ha ku dareen waxay ku dari karaan. waxaan codsanaynaa marka dadka jaaliyada ka soo jeedo ee deegaanka Bohol Garas dhulkiisa saa dhistay inay deegaankooda iyo dadkooda ay u daneeyaan baahida taaganna ay ka daboolaan. adduunka nolosha ugu horreysa waa biyo. biyo haddii la waayo wax noolaanaya ma jiraan. biyaha inaan ka garab istaagno reer Bohol Garas nolosha kale ilaha loo qabaa. hay'adahana kolay wixii cunno qaabilsan cunnada way geyn doonaan way naga ballan qaadeen. wixii biyo qaabilsanna way naga ballan qaadeen laakiin inaan anaga bilownay nagala hadleen. insha Allah taala waxaan rabnaa inaan bilowno hawshaas si buuxda annaga aan u bilowno. dadka jaaliyada jirana ay si buuxda ayagana noola bilaabaan oo hawshaas ay garab ugu weyn ka qaataan. annaga ka maamul ahaana garab ugu weyn garabka labaad aan qaadana garabka saddexaadna hay'adaha ay qaataan. insha Allah taala arrintaasna waxaan filayaa inay suurtagali doonto. أنا أدعو مهد علمي هيدا دمان كسوق قال الشركة الدنيا دقمة النوع الإعلامي أو كهول قال هيدا كهول قال جلو هذا الدجن فرد قولي هيدا دقمة دولو الدنيا والنوع الإعلامي سيدا يوصله وسوق قال الشركة دمان هيدا جو قيمة هذا كله بدون يمكن حفيزها جو دقمة دولو وحكولين هيدا هيدا الصراحة حفيز كل هاي أيوة ويا لي وصل دقيقة حالة أبني أو جديد دقيقة وأمهد علينا مركب وحقبتك أي قبتين ودمان دقموينك أي كقبتين هذه هذا أمهد علينا وحنا جعلنا هاي سبب هذا وقبل دوران هل كذا عن كحصني وباهيد وقدرن أردفته أو بيلا أنت أو أنا أنت أو دولة أنت أو حافظ مع أنت وحبر سلا أنت أنت بينك قبل دوران هل كذا أي كقبل عين وحير أو سدا أو بنين أو سجا أو يدك الجالسين عين جعلنا هاي سبب هذا هل كذا هيدا وقافين دوران وجالسين دوران أنا إن شاء الله وحنسمينا إن هذه الأهرال كان وضعت كنجا ورال كنجا أنت بوان قارتين دونا هذه هذا وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله.